xirnaado salaada hal la tukado dadka loo adeegayo qoriga lagu dhiibi doono iyo uniformkan lagu siiyey waxaasoo dhan waa hantidii dawladda waay maamul goboleedka Jubbaland kugula xisaabtamay waxa waay dadweynaha kugula xisaabtamay qoriga waxaad u qaadaysid waa inaad ugu adeegtaa dadweynaha ma aha inaad adiga kaga xoog badan tahay oo booliisa tahay booliis waxa waaye inuu u adeego bulshada waay waxaan rabaa inaan halkaan aan ka salaamo madaxda Jubbaland halkaan fadhisa oo laga yaabo qaarkood inaysan la soconin waqti laga joogo 40 iyo dhowr maalmood ka hor markaan halkaan imaanay waxaan bilawnay inaan tababarno dhalinyaradan baanbeeda maanta hadda aad ku aragteen meeshaan waxa ay sameyn karaan runtii anakoon cid kale aan la kaashanin waxaan bilawnay inay maanta tumaan hortiin aad ku aragtaan laakiin maxaa ka maqan qalab baa ka maqan waxaan rabaa marka inta laga ballan qaado maanta in qalabkooda aan isla gadno idinkana keena anigana waa keenina waa $1 isku darno waa waxaan noogu muuqatay dhalinyaro aad maskaxooda u furan tahay macallimiintii tababartay aniga waxa iga soo aadan waa dalacsiina hadii ilaa idmo waxba abaalmarina igu leeyihiin December uniformkii qoladan ay qaadan lahayd aniga keenay hadii ilaahay idmo qalabkan wax badan ma aha wax badan ayuu bedelaa alaga qayb qaato qalabkan waxaan dhameen $20,000 waaye waa kicisa meeshan waa $20,000 waa joogtaa bilka min $1 aan iska qaadno bahasha aan dhisno I would like to thank the UK Divid for supporting this project of regional police for Jubbaland for the second group and would like also to thank for their implementation about UNOPS and I will like to mention only one point. It is that this young